بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، شهركم مبارك. كسو دوادة تحنيه نيتو دبات رمضان ككوني أفر بقولي أفرتني تدبات هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سند كان تحنيه نعوان كيس وحاوية ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حلقدني وحلقدي كوبات عوان كيدنا وحو نقنيا إن شاء الله تبارك وتعالى معنى الفساد في القرآن، كيف يبدأ وكيف ينتشر. قرآنكو فساد محو يقانا سيديسكو باللوضاء سيديكو فافا فسادكو. قال الله تبارك وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إلهي وحاونا ليهي دلكها فسهادننا marka uu dhulku hagaagay kadib, oo sidaynu soo sheegnay dhulka ilaahay baa ku hagaajiyey waxyiga, daacada rabbi iyo cadaaladda ayuu alla ku hagaajiyey. ee idinku ha fasahaadinina siduu ilaahay ugu talagalay dhulka ugu noolaada. haddaad ka leexisaanna dhulkii waa fasahaadayaa, oo sidii markuu ilaahay ambiyada soo dirayey siduu dhulku u fasahaaday buu u fasahaadayaa. waxaa weeye qowmu luut, ilaahay wuxuu isugu talagalay ragga iyo dumarka markay intay ka leexdeen ay iyagu raggii wax iska dayay ay yidhaahdeen ama maantaba sida jirta oo xaalka ilaan waynu aragnaahe dhulkii oo la fasahaadiyey weeye. ilaahi subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu noo sheegay. nabigeenana wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alaa wa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa saa'iru ljasad wa idaa fasadat fasada saa'iru ljasad. jirka waxaa ka mid ah in cad yar oo in yaroo afka la geliyaba aan ka weynayn, oo hadday iyadu hagaagta jirka intiisa kalena uu hagaagayo, hadday iyadu xumaatana jirka intiisa kalena uu la xumaanayo raacayo. cadkaana waa qalbiga ayuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam. alimaam ibnu lqayim calayhi raxmatullahi waxa uu yidhi fasaadu lqalbi aslu fasaadi dunya waalaakhira. fasahaadka qalbiga, xumaanta qalbiga ayaa asal u ah inay adduun iyo aakhira labada daaroodba inay maaratay hallaabaan oo ay fasahaadaan. marka qalbigu haddii shirki uu galo oo bidco ay ka buuxsanto iyo khuraafaad, oo macsiyo ay ka buuxsanto, xiqdi iyo xasad iyo khiyaano iyo maaragtay istutus iyo ismaqashiin iyo qabyaalad iyo is-uurxumo hadday qalbiga ka buuxsanto, aakhiriya adduunna waa ku daayeen oo waa fasahaadeen. waxa weye sida ola soc ayuu imaamku ku leeyahay. axibatii fillah, fasaad maxaa la yidhaahdaa? fasaadku ma aha qur-aanku sida uu fasaad u yaqaano macsiyo hal mar ku soo martay ma aha, bal waa khuruuju shayi can salaaxihi wainxiraafihi can ilgaayati alatii khuliqa lahaa. shayga oo hagaagsanaantiisii ka baxa wixii loogu talagalayna ka leexda ayaa waxaa la yidhaahdaa fasaad. tusaale ahaan ibni aadamku ilahay wuxuu ugu talagalay licibaadatihi waxdah. markuu ibni aadamka cibaadadii uu seego oo cibaadadii uu ka leexdo, macsiyadiina uu ku mashquulo, qofkaasi waa qof fasahaaday, qofkaasi waa qof leexday, qofkaasi waa qof maaratay xumaaday ayaynu odhanaynaa. axibatii fillah, fasaadku sidee ku bilowdaa? fasaadku bad soo caariday ma aha, webi soo butaacay oo magaaladii qaatayna ma aha, ee wuxuu ka bilowdaa min daakhili linsaan. insaanka gudihiisa ayuu ka bilowdaa. qalbiga ayaa daciifaya, dhaqankii ayaa maaratay xumaanaya, mujtamacii ayaa markaasi mujtamac aan hagaagsanayn noqonaya. qalbiga oo xumaada waxaa ka dhasha aragtida iyo qaab fikirkii oo iyadana fasahaado xumaata ayaa ka dhasha. niyadii oo xumaata, weedhii aad ku hadlaysay oo weer xun noqota, dhaqankii lagu macaamilayey iyo sidii maaratay loo wada dhaqmayey, dariskuna uu u wada joogayey, darisna u ahaan lahaa, ayaa markaa iyadana meesha ka baxaysa oo xumaanaysa. dabadeedna cudurkii ayaa faafaya. fayruskaa isaga ah sidee ku faafaa? horta allah subxaanahu wa tacaala daawada iyo cudurka labadaba isaga ayaa abuuray. laakiin markii cudurkii uu meesha yimaado, caabuqiina uu bato, daawadiina la waayo, ama waaba lahayaaya la isticmaali waayo, bakhaarada ay ka buuxsanto, markaasi waxa weye cudurkii baa faafaya. xumaantiibaa waxay marka hore dilaysaa qofkii fardiga ahaa, deetana caaday noqonaysaa, kadibna dhaqan buu noqonayaa. wixii maaragtay laga xishoon jiray baa lagu dhacayaa, wixii caruurta lagu dhangadayn jiray ayay waayeelkii ku xadaaqayaan. qabyaaladii qur-aanka uu diiday, jaahiliyadii la diiday ayaa dhaqan noqonaysa, ayaa dastuur noqonaysa, iyadiibaa siyaasadda gelaysa, iyadiibaa madaxdii laleeyahay reer hebel ayaa kursigaas haysta ee kan xaq uma ay lahaa. sidaasaa marka waxaa weeye cudurkii uu ku faafaya. oo marka hore intuu qofkii kelida aha ka soo baxo oo uu bulshadii soo gaadho, ayuu maaragtay markaa dastuuradii iyo siyaasaddii ayuu gelayaa. deetana waxaa la leeyahay fasaadka maxaa keenay, dibdhaca maxaa keenay, abaaraha maxaa keenay, dowlad la-aanta maxaa keenay. waxaasoo dhan waxay ka soo bilowdeen qalbiga qofka muslimka ah ee muwaatinka ah ayay ka soo bilowdeen. nidaamkii baa marka fasahaadaya. sidaa daraaddeed ayuha alaxibatu fillah, qur-aanku in badan wuxuu isku xidhay
قلبك أو فسهادة يدلك أو فسهادة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. dhulka marka sidee ku hagaagaya? Dhulka wuxuu ku hagaagaa waxyiga sidaynu soo sheegnay. Daacada Rabbi buu ku hagaagaa, cadaaladuu ku hagaagaa, runtuu ku hagaagaa, ammaanaduu ku hagaagaa, ixsaankuu ku hagaagaa. Haddii waxyiga iyo cadaaladda iyo arrimaha aan soo sheegnay la waayana, fasaadkii baa xarka goosanaya. Shicaaraadku haba bateene, horumar baan idin gaarsiinaynaa. Yaa caalamul islaami iyo Soomaalida maanta ka xisbiya badan, yaa maanta ka calamo badan, yaa maanta maaragtay ka dowlado badan. Shicaaraadka iyo waxa la babinayo haba bateen, erayada la odhanayo erayo qurux badan ha ahaadeen, mar waxyiga hadduu meesha ka baxo wax hagaagaya ma jiraan. ilaahay siduu ugu talagalay in loo noolaado dhulkana loogu dhaqmo waa in waxyigiisa lagu dhaqmo weeye. faima yaatiyanakum minii huda faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa. ilahay wuxuu ugu talagalay qur'aankan inuu dhulka maamulo, koonka inuu maamulo. haddii qur'aankii laga leexdo oo maaragtay waddadiisii la qaadi waayo, noloshu way adkaanaysaa. xaalku meeshuu marayo maanta ayuu marka arrinku isu bedelayaa. ayuha alaxibatu fillah, aniga iyo adiga maxaa nala gudboon? ramadaan baynu ku jirnaa, ilaahay baynu u soomannahay. wixii shalay xalaasha noo ahaa baynu maanta ka soonnay. qof walbow qalbigaada ilaali, qof walbow qalbigaada daawee. inta aad cuntada iyo cabitaanka iyo muftiraadka ka fogaanayso ha ka badnaato inta aad cudurrada qalbiga aad ka fogaanayso, inta aad xumaanta ka fogaanayso, inta aad deelqaafka ka fogaanayso, inta aad xanta iyo isku dirdirka iyo dadka oo wax laga sheega aad ka fogaanayso ha ka badnaato. qalbigu hadduu fasahaado dhulku wuu fasahaadaya, qalbigu hadduu hagaagana dhulku waa hagaagaya. walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha wadcuuhu khawfan waطamaca ina raxmat allahi qariibun min almuxsiniin. ilaahay subxaanahu watacaala abaarahan baahay ee dad iyo dunyo iyo maaragtay dadba laayay, ilaahay subxaanahu watacaala roobkiisa iyo raxmaddiisa aan weydiisanaynaa. ramadaanka allaha naga aqbalo, ilaahay subxaanahu watacaala taacdiisa hana waafajiyo. jazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatuh.